marka mushkiladdu waa mushkila insaaniya ma aha mushkilad dhulkeenna ku saabsan dhulkeenna waxay odhan jireen nicmaa fadhida nicmaa ceegaagta waa iska ceegaagta xaqiiqada waa kaa dhulka ilaahay dadka siiyo dhan bay ceegaagtaa laakiin waxa qaldani waxa weeyaan dadkan ku kor noolay siday u fakerayaan iyo siday wax u maamulanayaan waxa qaldani waa kaa walidaalik aan tusaale yar kooban idin siiyo بلوتينada dawladdu soo saarto مثلا waxyaabihii aynu soo dhoofsannay January ilaa June 2019 oo bulletin dawladdu ay faafisay wixii aynu wadankan soo dejinnay laga bilaabo waa 6 bilood oo qura oo 2019 ka mid ah waxaan aad ula yaabo waxa ka mid ah waxa ku qoran digaagaynu soo dhoofsannay chicken meat 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 413 oo kiilo iyo hilib digaaga 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 646 kiilo oo kalluuna 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 5 milyan oo litir oo caana ah waxaa la walaaqaya 6 bilood ayaa waxaynu soo dhoofsannay in ka badan 10,000 oo darsin oo beeda beri waxaan filayaa 1986 meelaha inay ahayd 87 January mid bay ahayd ayaan Djibouti tegey dabeetana waxaan arkay Djibouti oo naalada waa beedka Yemen iyo Faransiiska laga keeno markaasaan aad u yaabay wadankan dhan beedkii cuna lahaa laga keenayo dabadda haddana maalin dambe tareenkii xumaaday Itoobiya ka iman jiray arbacadu tareen xawaashka la yiraahdo iman jirayo khudaarta wax lagu karsado dhan waaga aad baan u yaabanaa ma wadan jira ayaa khudaartu cuna iyo beedku cuno dabadda looga doonaya taanigo ka yaaban baan halkan toon u baahday toon baan soo iibsaday dukaankii toonta iibinaya waxaan ku idhi toon yarro qurux badan u baan ko 7 kiilo isugu xidhan oo isa saaran maasaan ku idhi waar toontan xagee ka timi toontan markaasuu ku idhi China ma intaasoo 1 kiiloomitir bay noo soo lugaysay xabad tooni waa toon xabad toona oo hargeysa lagu dhex iibinayo oo China laga soo raray oo markab la soo saaro dhowr bilood soo socotay hadda dhowrka bilood way bixi lahayd hadaynu ku ridno dhowrka bilood markabku soo socday way bixi lahayd hadaynu dhulka ku ridno idan aqliga keenaya in xabad toona ama kamsare ama wax la mida lagaaga keeno dabad waa aad u cajiiba مشكلتني ماها مشكلة يردتك سيصور يرما هدان أخريات داتا هلكا كو قرن دولة صو صارتي واد عجبي لهاي دتك وحا عنية GDP جن واي مسا وحا صو صار كودن كوبا واي مسا 2002 ألف World Bank ايو دولة وحي سوا دا صارين وها 1.4 بليون صو صار كينو با kuwa hadda ugu badaya waxay yiraahdaan 2 billion laakiin masaadir waliba sources aad loo ictimaadi kara maaha laakiin World Bank iyo dawladdu kay soo wada saartay wuxuu sheegayaa inta waxay sheegayaan ihsaayaadka qaarkood ajsiga mesela ihsaayada hore dawladdu soo saartay deficitka ku jira tijaaradeena waxaynu soo dhoofsanayo waxaynu dhoofino 205 milyan ayaa 6 bilood gudahood deficit ku yahay almost waa 5 نص بليون ديفيسيتين كجرنا العكو دو سيت المامية تا معنى هدو حويان يدو بير كابيتال وحسوسير كان يدد كان مركا الله قيبيو وحكو غياسان قف كيبا صدح بغليو تضبيا $40 بسنة كدن كوكسو هقاقيا دان من اسمال انتي $1 مهشيت سنة كويم سمع الموت
saddex boqol iyo shan iyo lixdan waddankan aad joogto wax soo saarkiisu maalintii qofku $1 ka yar buu soo saaraa weeyaan marka loo qaybiyo xisaayaadkan aynu hayno waxay dhahaan Somaliland marka loo eego waa waddanka afraad ee dunida ugu dambeeya wax soo saarka saddex baa inaga sii dambeeya iyana baktiyey waa Malawi iyo Democratic Republic of Congo iyo Burundi saddexdaas ay inaga sii dambeeya marka la eego investmentka level of investmentka approximately waddanka 180 baynu nahay waddanka 180 that means 197 waddan baa inaga horeeya runtii إحصائياتكن أما الدولة الصوصار أما World Bank الصوصار أما واحد كان الصوصار واحد آخر كربا معها Somalia تكلنا واسكو هذا النوع اسمه دانتو Somalia يقول هان وحيلين مرها واحد صوص استان وقول agricultural import وسيدية طبعا شهر لاب من 1980 جين توها سكاله هو 1.5 billion أي annually wax soo siistaa nooca ku saabsan Soomaaliya guud ahaan marka la eego waxaynu soo iibsano midalan boqolkiiba 8.8 waa tobacco waa sigaar halka waxaynu mishiin soo iibsano dhan tobacco-daynu iibsanaaba ka badan xataa sokortaynu iibsano tobacco-daynu iibsanaaba ka badan saama filaysa Soomaaliya marka la isku daro sokorta la keeno waxa ka badan tobacco-da la keeno sokorta la keenaa waa 6.44% bay leeyihiin laakiin tobacco-da la keenaa waa 8.82% waxa waddanku soo dejiyo waa ITC 2018 waxay soo saartay ayaha la xibba iyadoo dunidu loolankaa ku jiro inaynu halkaa joogno ayaa saadaasha mustaqbalku maxay tahay nimankii dunida beejka madow u shidi jiray waxay leeyihiin dadku wuu badan doonaa gaajaduna waa la badan doontaa baahida cunnada ee dadku wuu gadan doonaana boqolkiiba 50 2030gan dhow boqolkiiba 50 baa cunnada la gadashadeedu ay badan doontaa numuwiga zaraaciga ee la socdaana bay leeyihiin ma badna cunnada bini aadamku uu soo saaro thuluth ka midana muhadar bay noqon doontaa sida aynu sheegnay واحد من كل ثلاثة سوء تغذية بكع عبندونا reer magaalnimaduna waa soo badan doontaa oo 2050 waxay leeyihiin dunida dadka ku nool boqolkiiba 70 reer magaal bay soo noqon doonaan that means beerihii iyo baadiyihii iyo xoolo dhaqashadii baa laga soo guuri doonaa magaalada la iman doona kuwanina waa suu nadiir dambe intay hadda joogto markaa way ka sii faal xumaanaysaa bay iyagu sawirayaan haddaba haddii mashaakilkaasi jiro kow mashaakilkan waxay leenahay waa mashaakil siyaasiya oo siyaasadda waddanku uu leeyahay waa mashaakil cultural ah oo dadaan geed ay gooyaan mooyaane geed beeraynin naqsi lintaaj wax soo saarkooda aad u yariyay intay sheekeeyaan ay ka badantay intay shaqeeyaan marka dambana aan system waxay u store garaystaan ama wax u kaydsadaan ama wax u ilaashadaan lahayn suluukiyaadka iyo kayfiyatul istihlaakuna uu qaldan yahay waa dhib laakiin dhibta ma laga bixi karaa ha الأستاذ عز الدين عمر بروفيسور كاميدا بروفيسور رضا دقا وحيابها كان الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية أي وحوليه هي تعبير كانوا فيرسو زيادة الإنتاج عبادة وتغيير نمط الاستهلاك الزهد ومحاربة معوقات الإنتاج حسبة وردم الهوى بين الأغنياء والفقراء التطوع وهذا لا يقوي عليه إلا منهج مقتبس من النور الإلهي ولا يوحصو صار كله كردية وعبادة بيرها كان يوحل بيرية والنوع من العبادة توقفوه تلقره كالجر كاينون لي
ama si qaldan wax loo cunayo ama wax qaldan la cunayo in wax laga bedelana waa zuhdi buu leeyahy waxaanad u baahnayno tiro badan le inaad isku gurin waxyaabaha intaajka is-hortaagaya mucawaqaadka ku ah obstacleska ku ah la dagaalankooduna waa xisbadii diintu ay ka warramaysay foqorada iyo kuwa waxhaysta waxa u dhaxeeya in la soo yareeyana waa qadiya iimaan iyo tatawuc iyo waxbixin iyo takaaful ku salaysan waxaana ma samayn kara buu yidhi manhajka alloo la qaata mooyaane waa khabiir ninkani ka mida khubarada waaweyn ee brofesorada waxaan dhigaa laakiin wuxuu leeyahay sistamka qudhe waxaan wada dabooli karaa waa sistem islaamiya laakiin sistamka islaamiga aynu sheegaynaa muxuu u baahan yahay ma inaa masaajidda soo buuxisaan buu u baahan yahay salaad badan tukataan nacam haddaad ilaahay xoog u baridaan ilaahay waa idin arsaaqaya laakiin dee ilaahay masaajidka fadhiisto ay barya ma odhan briskaa soo daadanaya kuma taallo qur-aanka kuma taallo ee wuxuu u baahan yahay adawaatul intaajkeenna inaynu wax ka bedelno dadku siduu u fakerayay qaab nololeedka in wax